بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada saaxiibayaal Ramadaan Mubaarak waxaan idinku bishaareynaya idinku hableynaya dhammaan asxaabta igu xidhan soo galida bisha Ramadaan Ilaahay nabad iyo caan ha inagu dhameystiro kuwii sooma ka faa'iideysta acmaal fiican iyo cibaadana ku camira Allah inaga dhigo dhammaan muslimiinta meel walba joogaana waan u duceynaynaa bash iyo barwaaqan u rajaynaynaa khaasatan walaaliheen reer Gaza in Ilaahay dhibaatada ka dulqaado ayaan ugu duceynaynaa oo sideena ay nabad ku soomaan iyo farxad iyo amni iyo barwaaqo ay ku soomaan ilaahay bana subxaanahu wa tacaala uga baryanaa intaas ka bacdi fiidiyogan yar kooban waxaan kaga hadli doonaa ramadaanta horta ramadaantu waa bil barakaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fadilay bilaha kale ee sanadka 11 bilood ee kale ramadaantu waa boqorka bilaha kale waxa ku dhex jira habeen la yiraahdo laylatul qadri oo ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka soo dejiyay waa habeen u dhiganta 1000 bilood ka khayr badan 1000 bilood haddii sanad laga dhigana waa 83 sano iyo 4 bilood sida culimadu ku qiyaasaan waxaad ka khayr badan tahay qof dhowr iyo 80 ka sano cibaadeysanayay hadda maaha qof adduun ka shaqeynayay oo macaasi sameynayay maaha waa qof cibaadeysanayay baad ka wanaagsanaanaysa oo ka khayr badnaanaysa waxaad u maleynaysaa qofka Ilaahay waafajiyo dhowr Ramadaan ama 5 Ramadaan tusaale ahaan Ilaahay waafajiyo laylatul qadriga Ilaahay aw halil siiyo imsu ajri leeyahay waxa kale markaad ka eegto Ramadaanta macaasida iyo dunuubta aad sameynayso libilab ay noqonaysaa Ramadaantu waxyaabo khaas ka laatay waxa kamid ah markay soo galayso Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu xidhaa shayaatiinta waaweyn buu xidhaa naarta albaabeeda waa la xidhaa albaabada jannada waa la ballaqaa iyadoo loo sii diyaarinayo oo loo qurxinayo dadka muuminiinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay Ramadaantu fawaaidda waxa kamid ah fawaid caafimaad baa jirta oo Ramadaantu leedahay xataa gaaladu way soomaan iyagoo mataqaana cibaadahan u soomeeyay caafimaad ahaan u soomaya waxaan nagu bishaareynaya bisha Ramadaan ee soo gashay muuqaal khayr kooban baan ugu talagalay inaan idin la wadaago waxaan yar daba raacinaya oo kaliya xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ya baaqi al-khayr aqbil wa ya baaqi ash-sharr aqsir oo ah qofka khayr ku cararayo soo dhawow qofka sharka ku cararaya ee sharka ku faradhoobana ha gaabsado dhalinyarada waxaan uga digayaa dhafarka habeenkii iyo dhabacaadsiga iyo jiifsiga iyo hurdaweynada dharaarti oo dhalinyaradu ramadaantii waxay ka dhigeen mid habeenkiina la saamaleelo oo wax aan ilaa raali ka ahayn lagu soo jeedo maalinkiina la hurdo oo la isku dhaafiyo waqtiga taasina maaha mid wanaagsan sharciyan iyo aqliyanba marka dhalinyaro naftayda iyo naftiina waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal inaan bisha Ramadaan ku camirno khayraad iyo acmaal wanaagsan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa dhigano oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka talabno inuu Ilaahay ciqaabka dambeeya iyo cadaabka iyo caqabaadka faraha badan leh ee naga dambeeya in Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu fududeeyo waxaan ku darayaa oo kaliya salaf saalix sidee ramadaanta ku ahaayeen shaafici oo kale imaam shaafici ramadaan markay soo gasho intuu cilmiga laabo ayuu dhameyn jiray laba khatmo maalin waliba oo ramadaanta soo gasho maalin waliba ramadaana 60 juz buu akhrin jiray wala taajub saajib iska daaynagu 60 akhrinay waxay nagu adag xisbi iyo jis iyo bay nagu adag caajis culays ba qof walba saaran aanad garanayn meel uu ka yimid qof baas ka arkaysa waxyaabahan keenayna waa isticmaalka faraha badan ee social media oo keenayo qofku inuu ku raaxaysan waayo oo uu macaan u dareemo waayo cibaadada Ilaahay subxaanahu wa tacaala arintaasina waa arin aad iyo aad khatar u ah oo qofka kula dagaalamaysa waajibkii saarnaa ee ka saarnaa diintiisa iyo dadnimadiisa iyo aakhiradiisa salaf saalix cibaadada habeenkii ay nuurin jireen waxay sameyn jireen maalinka oo dhan quraanka akhrin jireen habeenkiina way ku tukan jireen sadaqada aad bay ugu tali jireen nabigana sallallahu alayhi wasallam alayhi wa qudwatun hasana ibn yahay wuxuu ahaa ku quraanka la mudaarisiyo oo la subciyay jibriil alayhi salaam wuxuu ahaa ku dadka mataqan u dhabriya oo wax bixiya wax bixinta iyo khayrka uga orod badan tabaasha la daray oo kale waa inaan iska ilaalinaa waqtiga aynu luminayno ee aan beertareynayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh